السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كسو دوادا ولا شو معيمن شانل كيجا مانتا waxaan ka hadlaynaa autismiga waa marxalada kala duwan baan ka hadlaynaa insha Allah si ay caruurtu ma daragta aad uga faa'iideysataan waxyaabadan si loo caawiyo step 1 step 2 si isku xigaan insha Allah markan waxaan doonayaa kitchenka waxyaabada yaala ee faa'iidada maxay u yaala ilmaha maxaa safety-ga lagu barayaa ilmihi haddaan kitchenka kala baqano inaan gelino waxay noqonaysaa hadhow toole inay adkaato ilmahaaga safety-ga la qabsado oo maanta oo dhan ka soo xidhada haysid markuu yar yahay waxa baraysaa waxa dhex yaala iyo waxa isaga ka yaala waxa la rabaa xitaa caruurta qaar markay hadalka wax walba soo qabsan karaan sareyaalku meeshuu yaalay soo qaadan karaan wax walba soo qaadan karaan ilmahaasi maasha Allah boqolkiiba wuxuu fiican yahay cotton mar hadduu wax walba qabsan karo maxaa ku xiga markaas hadalkiina waa ku xidhan caruurta qaar baan ka hadlay caruurta qaar way hadlaan caruurta marka hadal ku xidhan wax walbana qabsan kara waxaad u baahan tahay inaad ka loo garaysid qaanadaha aad arkaysid iyo waxaad ka loo garaynaysaa meel walba sida marka wax log lagu sheegayna maaha inaad qofuliyo wax u sameynaysid way guriga wad ogtiin dadka qaar waa temporary oo kare ku jiraan dadka qaarna waxa weeyaan guriga waa permanent anaga wadanadeeda kale lagama baxo marka sidaa darteed waxaa jira wax magnetka waa wax isku dhajinaya oo maasha Allah aad u fiican oo hablaha groupka kale aan soo tuuro ee ogyiin marka magnetkaas waxay ka caawinaysaa maasha Allah inuuna ilmihi furi karin wixii uu rabayna markaas saad sawiradan oo kale waad ugu dhajinaysaa markuu doorto ku raado macaanaad rabtaa ma cuntaad rabtaa macaanaad rabtaa mise sharaab wuxuu dooranayaa sharaab ka soo qaad marka waa inaad tiraahdo sharaab baan rabaa luqadda wadankaaga luqadu way kala duwan wadanada kala joogtaan luqadii marka sharaab tiraadid inuu ka hadaba yiraahdo sug muddo waxay keenaysaa markaas maasha Allah marmar uu kugu xanaaqi karaa ku darbaaxi karaa waayo face to face wajiga u saartay waxa rabtaa inuu ku soo eego inuu sharaab ka daba yiraahdo patient inaa noqotaa fiican maasha Allah sidaa darteed waqti gali waqtina si adigana samir badan la yeelo maasha Allah sidaa darteed waxay keenaysaa koos garanaysaa marka uu idhaanayna ma qasab inuu idhaanayo sharaab ka oranay markiiba horta wax walba Ilaahay baa haya laakiin dadaal baa loo baahan akhwaati marka speech therapy-ga lagu sheegayo oo waxyaabada laga dhaxla maasha Allah ee progress ku sameeyaan ilmuhu marka tiraada sharaab iraado wuxuu afku kala furayaa sidii qof oran raba hadalkii ayuu afka kalba kala furayaa afkiisa arkaysa uu rabaa inuu iraado uu iri haduu doono maasha Allah waxa leedahay wow maasha Allah waa tiri sticker-kii baad siinaysaa sharaabkii baad u soo saaraysaa waa dhiirigelin ogaada muhiimada ugu weyn qaarkood iyadoo luqad si kale u yiraadin ka soo qaad cheese oo kale ma karayaan waxba oran karaan moogtahay marka waxyaabadaas oo kale haduu si kale u yiraahdo weeyahan adigu waad fahmaysaa taas oo kalena maasha Allah waa sax still haduu afka kala furana waa sax waa muhiimada ilmaha waaweyn ka waaweyn 14 jirada akhwaati iyaka markaan ka hadli doona insha Allah si gaar ah waxaan rabaa waxyaabo qaar iyakana inaa bartid midaas waa mid inuu sareyaalkiisa waxyaabadiisa maasha Allah u kala garanayo wuxuu doonayo aad bartid waa muhiim wuxuu uga baahan yahay kitchenka waxa kale aan rabaa inaan sheego arrinkan oo kale maasha Allah bahalkan aad arkaysid aan soo sameynay maasha Allah wasaasoo kale laminadkan waxaad ka helaysaa waa mashiin baa lagu sameystaa marka soo print garaysatid sawiradii oo color leh color bana ku fiican sida laminadkan aad galinaysaa waayo ilmihi kaama gogoyn karo kaagama ciyaari karo marka waxa la doonayaa waa kuma waxyaabadii toilet marka raadid musqushi waa inuu musqushi saari karo marka haduu mid walba mideedii sida u saaro oo ilmihi garto inuu saari karo saa u arkaysiin maasha Allah marka ilmahaasi aad u fiican yahay maasha Allah waa tigaraysanaysaa hebel uu gartay maanta in tigara waxay qaarkood waxay ku qaadanaysaa 2 cisho 3 cisho qaarkood waxay ku qaadan kartaa usbuuc inay la fahmaan inay sheegi dul saaraan ay gartaan ma fahantay maasha Allah markuu taa garto waxa kuugu xigta 2 shay baad saas ku barbar dhigaysaa 2 shay baad saas ku barbar dhigaysaa waxa leedahay isii waxa leedahay okay bariiska isii baad leedahay bariiska isii markan umaad sheegin oo maad oran bariiska aawe maad oran markaad u pointi garayso garanka la markan haduu magaciisa soo saaro maskaxdiisu uu ku dhiibo waa shay fiican
way fiican tahay ilmahaasi maasha allah aad buu wanaagsan marka kale 3 baad uga dhigaysaa halkay labada ahaayeen haddana maalinta kale waxaad leedahay toiletka idib aw toiletka isii marka waxa weyn waad saaraysaa maasha allah halkaasna waa fiican yahay markuu ka gudbo inuu garto ereyadan uu madaxiisu inuu qabteed ogtahay waad ka wareejinaysaa kuwa cusub baad u samaynaysaa marka ha ku badin isbuuc kani baad u samaynaysaa oo 5 minutes markaad kan u samaysid maanta oo dhan ha dul taagnaan kan marka 5 minutes samayso oo ka wareejisanaysaa kan aad u samaysay oo la taxayo adiga xabada ugu horeysa gelinaya magaciisa weeyaan magaciisa aad akhriyaysaa marka hore saasoo kale kuwana waaweyn hadduu kuwan yaryar la keeni waayo kuwana waa waaweyn waa ka meeshaasaa laga gelinaya dunta kuwan laftigooda way leeyihiin saas u arkaysin waa la gelin karaa oo arkaysin marka magaciina uu ku baranaya gacmahoogana xitaa muruqyada oo ku dhismeen kan laftigiisa waa la gelin karaa nambaradaad ku baraysaa hana ku badin nambarada marka hore 3 kaliya bar 4 iyo 5 ka gada 3 kaliya tabar markuu 3 ugu horeeyo barto oo ilmihii barto 3daas maasha allah 3 waa inuu bartaa ilmihii 3 qura markuu barto oo marka waxa weyn maasha allah waa shay fiican qoraalkoodii baa qoraysaan iyagoo 3 idib baad leedahay waxyaabo yar yar baad u dhigaysaa markaasaad leedahay xabad idib iyo 2 idib kana 2 ag dhigaysaa saasoo kale warkaysid kana 1 ag dhigaysaa ma fahanti xabad idib saasoo kale luqadda wadankeena imka Soomaaliya waxaan igu yaarayo nigu sheegay hasta raalada waxa weeyaan si aan u wada fahano dadku wadana kala gaaray joogan marka waxa weeyaan aad ay muhiim ugu tahay marka ilmaha break time-kana waxyaabadan oo kale waa siin kartaa inuu xasho kale wax qaruurta qaar bahaladan oo kale jecelin qaruurta kale waxyaabo badan baa jira insha Allah nala sharin garan karo waxana waxa weeyaanadan muhiim bay tahay ee kala laftigooda ina barti magacdooda maalinba in baa baraysa waxa kale oo doonana tuso waxyaabada xagan aad arkaysiin masha Allah halkan waa bahal baan ku dhajiyay halka dambe bahasha qabsanaysa ee lagu dhajinayo ay arkaysaan waa tan akhwaati waa kan iyadoo weyn bad iibsanaysaa waa googoosanaysaa xitaa bahashan waa bahal baa ku dhagta arkaysan waa routine oo kale inta shay oo kale halka dambe laga dhajinayo kale taas marka loogu dhajinaya marka bahashan iyadoo weyn baa la iibsan karaa adiga marka gurigaaga ku samaysan karaa maasha Allah qasab maaha waxana sawira waa soo printing karaysanaysa except kuwan oo kale iyagoo badan baan haystay way fiican tahay ina casabiyadiisa inuu xanaaqsan inuu faraxsan yahay sawirada ku tusaysa markuu ilmuhu hadlayn si uu kugu sheego ilmuhu ma sheegan karo saad waqtiin akhwaati way ku adag tahay arawaarna mar walba la siiyo hadda toilet training sidii hadii kalaba waa ina ilmahaada aad dhiirigelin siisid oo sticker siisid waxa kale oo iyaguna maasha Allah meeshan ka reebaneen waa waxyaabada jimicsiga loogu sameeyo ilmaha loogu massage gareeyo kan oo kale waxa weeyaan waxyaabada waxa la doonayo ilmaha xitaa kan oo kale waxay ka caawinaysaa mar waxasho inuu qalinka wax qori karo ilmaha inta badan qalinka iyo qoraalka waxa dhiba jirkooga muruqyadooda weeyka inuu waxashaan waa muhiim ilmaha caadiga xitaa way ku dhacdaa qoraalka jeclena gacmaha weeyga daalay hore marka kubadan waa safe guriga lagu ciyaari karaa mana ka jabinayaan waxba waa kubada safe oo ilmaha physically in la ciyaaro kale oo lagu baro isoo dhiib soo tuur inuu sharing oo kale ku barto inuu ku soo eego kale waxyaabada oo kale marka baraysid muhiimad weyn ugu leedahay hooyada marka waxyaabada aan daliidka aqoon ilmaha maasajka حرة ماشين إنا نتصل إن شاء الله ماشين كانوا كلا أخواتي فوق عاونا علمها عن سيحان وكلا إنا أدليشيد وكلا ما شاء الله أديك هو أنا وأبا هنتين نقول دليدو سجنا ودقول دليديسا مركا أدليديسيد واحد ساريسا توالبا ساريسا دبركا أسيحنيسا توالبا ساريسا ما شاء الله أفكا ولا ببدلا بعض أفكا ولا ببدلا نعذا بربيلا ذا ما شاء الله الماء والكلا دادنيسا ما شاء الله هذا سلا ذا قعنت هذا كم كم أيو ما شاء الله ماشينا ذا نكو وقسمانيسا هذا وفي عنتها أخواتي ما شاء الله ومهمة وين مركا وقسمين كرتا إني كان وقسمين سكرتان ما شاء الله المي بكاحة ونسا وحياة ربنا بكاحة ونسا ما شاء الله
rutinka kan iskuulka oo kale markuu tago way degdegsanta oo kale hadda iskuma habeysno laakiin iyada isku habeysan baad samaysan kartaan oo saa loo dhadhajinayo kale waa la iibsadaa kan oo kale hoose waadna soo daabacan kartaan haddaad doontaan waadna iibsan kartaan maasha allah bahalada yaryar oo kale wixii iskuulka oo kale kaliya taa kuu soo raacaya marka way fiican tahay hooyadu inay isku diyaariso waxyaabo fara badan oo ilmihii markaa ka caawinaysa salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu insha allah isku soo duceyno فيديوهات بدنا إن شاء الله نرشر إنترنت وأنا أشوف ترتا